حزب وطني العكول لينين حزب وطني وسيله كول لينين حزب وطني قداد كول ليو صوصدا maahan waxaan idinku boorinayaa wax yar baa guushii ka hadhay sida idin heeganka ugu tihiin inay idin u sii libalaabtaan dadaalkiina oo ay idin codkiina la hubsataan 13 November hadii Ilaahay qadaro شوادنا ودني شوادنا ملين شو فيلمية كمان تخلصوا يا ما ترى فيلمية ونبي الله وحكلوا لي شيء يا راويرو وحبدن بان آدم مقلا مدحوينه كحيان كوا ريبليو مدحوينه كحيان كوا ريبل وارقديداas way dhamaatay waxa aan bedelayna waa waxa gobolka awdalna waxaan insha Allah u rajaynayaa inuu noqdo meesha laga badbaadiyo maanta Somaliland oo aad fartiina ku badbaadisaan iyo codkiina hadii Ilaahay yiraahdo Soomaha sidaa ninka aanu dooranayna ugu ridanaa waa wadanka xisbiga wadani Soomaha waxaan doonaynaa isbedelkaasi inuu dhaco oo kulmiye uu ka baxo meesha taa ma isku raacsanahay waadiya badmaasantiin waxaanu raacinaa waaga baryay waa wadani waxa ka daaya waa wadani kulmiye wuxuu la yimid laba qodob mid awdal baa gooni u leh midna qaranka Soomaaliland oo dhan baa leh kulmiye halkan wuxuu la yimid qaybino wuxuu u kala saaray dalkii dad Ethiopian oo dalka badagarayn iyo dad reer Soomaaliland wuxuu yiri reer Ethiopia waa dad wadanka ku daldagaro xaq u lahayn doorasho kama raba buu yiri kulmiye lacagtiisa ma raacna mustaqbalkeena ma uumina ma godbaan isku ridna ma guudkaan u soo baxna taasay noo ballana farteenu waa wadani muuse waxaan leeyahay laba eray ka joojiyo Somaliland mujaahid baanahay oo darafyada u sheeganaya ka joojiyo waa Somaliland sababta ay isugu iman mayso ku kala tagaysaa way cadadka aan la soo baxno markaan 100 la soo baxno waxa weeyaan codkeena saamigeena ku qaadanayna halkay marayaan dadkaas waa ka naxaysan xisbiga kulmiye waa gaangis dalka dhameeyay bal waxaan maanta dooraynaa wadani baynu dooraynaa si uu wax uga qabto waxyaalaha dhibaatooyinka muxuu inoo kasbay maxay kulmiye dhulkii uu dadweynuhu lahaa ee maxay ahayd dadka ka dhaxeeyay ayuu shakhsiyaad qaatay